بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن daawadayaal meel kasto daafaha dunida ka joogtaan codkayga iyo muuqaygana idin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijka Han iyo Halabuur magacaygu waa Maxamed Cabdi Ismaaciil halka aad daawanaysaan waa Kadi Show amaba Samatalis Media Group maanta waxay la joogaa mid kamid ah halabuurada magaalada Hargeysa oo ku soo casuunay barnaamijka Han iyo Halabuur oo magaciisana la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciise oo horeyn abwaane soo dhaw ku dhawahay Maxamed Cabdi Ismaaciil aad iyo aad ma hasad saaxiib ku dhawahay barnaamijka Soomaaliyeed aad iyo aad baan soo laabay markii ay joogaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waayahay abwaane hadii soo dhaweynta intaas ay kaga nimaano bal in yar dadka waxa u sharaxdaa taariikhdaada oo kooban halkii aad ku dhalatay halka aad ku barbaartay iyo waliba halkii aad ka hana qaaday bal intaas ay dadka u yar sharax si ay u ogaadaan wax badan oo ka darsan dadka iyo horta ma taariikhdu ma dadka mutacalimiinta waxay ku wanaagsantahay أنا waxaan ku dhashay hawdka Itoobiya ee ka sareysa xadkan xuduud beenaadka Itoobiya meel la raado Gondaale ayaan ku dhashay maraa waxaan dhashay sida aabay sheegay 1978 bilowgii meelaha ayay ahayd waxaan ku soo koray anigu aagaas dadka xoolo dhaqatada ayaan ku soo dhex koray Soomaalida gubtaa waxbarashada in halkaas aan ka soo bilaabo ayaan waxbarasho waan soo waday waxaan soo wareegay Hargeysa aysan muddo aad u dheer ku noolahay aad badan dhowr iyo 10 sano ama 17 sano meelahaas inta ceelkan Hargeysa ayuu man joogay waxbarashadeeduna ahayd inahaas baan ku soo koobaya sooyaalkayga nololeed horeyn hadii aynu barnaamijkeena guda galno bal maansada daluun goorta ay soo baxday iyo waxay ku soo baxday iyo sida ay ku soo baxday iyo wixii kugu dhaliyay intaba bal oo yar sheekay maansada daluun niyoorta waxay soo baxday 13 bishii saddexaad 2017 waaga waxa wadanka ka jiray ama aroosnaa dadku aad u hadalhay bangi ribo wala doonay dalka laga furo marka bulshada sida fiinta ayay uga qaylisay arrinka waana wax dhaqan ahaan isxaaga islaamka ku xun ribadu waa waxa ummadaha islaamka inta badan baabiya marka anigoo taa ka caga gubyoonaya oo aad uga warwaraya ay maasada ugu dhalatay marka kulleeyna 4 docood ama 5 docood bay tilmaamaysaa yartu cabadan bad moodaa maasada inay tahay oo marka jiray waxay taabaartii ku jirtaa marka inay gudaheeda ayaa hadii lahayd ma laga arki doonaa maasada waxa ku jira marka ay waxaan ku hal qabsanayaa abwaanagay Cali Khaliid anoo kaan aad iyo aad uga salaamayo abwaan xagayga qiimo aad gole oo qiimo badan oo Soomaaliyeed anoo salaamayo ayaan ku hal qabsanayaa marka maasadu haddaan noo guda galo waxay ku bilaamaysaa nigayo darwiishow degalkan ku noolahay odayaal dilaalo duumada colaadiyo daacuun ka daranba xaaraan daldalayo dollar ku mamayo dafiraya diinta xaqiidaha saaro daadihiye ribado dubanaya xaaraan dulmi bay faleeno ceel iyo dalluun dheer ku damsiyo ummadii ceel iyo dalluun dheer ku damsiyo ummadii rabow daalimiinta dabadhil fagaalada duumaha dhex jiifee ibliiska dayuuskuna u durbaan garaacay dawliskiyo wadaamaha dardar ayaa dheecaan ka durduri xumaanta waa fiix dilaaciya daayina wallahayow dembiga hareeraha dadka ayaa ka mariyo ruuxa daahirkan cunin xoolaha dadweynaha rabo meel dugsooniyo dabaqada firdawsiyo wabiyada durduraye daawshada u rooniyo daadii halkii mudan damiir laawayaashiyo kuwa diinta baalmaray duugaya samahay taariikhda duugii ku daabici diiwaankooda eeba qadhaariyo dacar bay dhadhamin oo dubayaal xadiidan ku dilaacin madaxooban la doodi doonaa waxa aan digniiniyo fariimaba u diraya dan yartaa dalkayga tiiftii xanuunka iyo duruufu hareeyeen hoggaan daalinoo raba danta guud inuu liqo cuno weligaa durbaan yahay daarin jaandheer taan waxaad ka baridaan hoggaan daacad oo wacan daliilkii islaamka iyo dabaqaya diinto sida diirta aan cunin xoolaha dadweynaha waxaan duciye khayr dushaan ka huwiyaa ruuxii dadaal iyo daacadnimo ku caanee dib jirkiyo agoomaha maatida u diirnaxa waxaan duubu gelin la doobi aanu culayaa hoggaankan dulqaad iyo deeqsinimo ku garan karo dekanaha qabiilka iyo daqarada daweeye daacun caloolaha qabyaaladu ku dadan tahay ku damsiye ceel dheer abwaan doore baa yidhi abwaan timcadde abwaan doore baa yidhi dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaana waxaan ku sii daray ninkii darajo doono dustuska iyo khiyaanada dulmaan kaaga digayaa dogobya baxayo digaa hoos ka shidanoo tacalada adduunyada duugeedu yeedhee yaan damika lagu dhicin halkaa markay marayso dan yartii waagii dee soo tilmaamay markaan nin deeq la dhahdo dan yara ayaan iska lay dan yara ahad loo yidhi duqonow garaadow waan anaystayda wada socota filaya dan yara ahad loo yidhi duqonow garaadow diricdaa kumooday ilan damin xun baatay nimanka dawaafee
dunyadii dalkayga dahabkaygii mariyay doolarka qaatay u dalxiisa dibada ayaa darajo khayr leh daacadnimo ka sugaysaa anigoo dayacanoo diihaa la qababay dibirada la daa anigoo dayacanoo diihaa la qababay dibirada la daacan gidigoodba waa dulinimo ku caano waa dawdar midhane miyay gelis doorshaan kan joogaya ka soo socda iyo waxa la waxaba isagoo ka dayrinaya anigoo dardhanayo gaajana damqanaya dekadaha xaraasha sharcigana dumaalaan dalka inaanu leenahay damiirkoodu ma ogola ninkii doonya keene dubay maal magaale dukaamada furan yihiin ee weliba daariya dabaq hor saaray deeqa u dheeriin ayaa daaqsin geeliya dabad looga yeedhaa wad maqashay dee hebel qurba jooga ayaa la magacaabay ayaa daaqsin geeliya dabad looga yeedhaa ayaa daaqsin geeliyo dabad looga yeedhaa meelkaan ku celi anigoo dardhanayo gaajana damqanaya dekadaha xaraashaan sharcigana dumaalaan dalka inaanu leenahay damiirkoodu ma ogola ninkii doonya keene dubay maal magaale dukaamada u furan yihiin ee weliba daariya dabaq hor saaray deeqa u dheeriin ayaa daaqsin geeliya dabad looga yeedhaa haddaan beeran laa digir ama dalagyo fara badan dibi baan u baahanahay qaniin baa dilaacdo doc kastaan ka eegaba dalku uu danyac yahay doodina soo xidhay haddana waxaan garan maaye halkaa haynoo joogtay buuri markaa wadda bal waynu jawaabay ilaanaa badgalay doodaadan toga baan danyaroo ku diirsaday dunidaba dhammaanteed dabaylaha ruuxaayo tegid bay u dhowday waxaan kuugu darayaa duruustii iyo aqoontiiyo ku dadaal tacliintoo samadaa dusheeniyo dayaxaa u duulo waad gaadhi darajee digriyada la sheegayo masteridka daydayo ogow samirku waa dahab lagu jiro dayr adag dugso oo hadaayicin haddii diinta lagu dhaqo degmadaba abaaruhu ilaa kama dilaaceen waaga abaar halisaa jirtay haddii diinta lagu dhaqo degmadaba abaaruhu ilaa kama dilaaceen ummad wada dayawdo ka hawday dawgaan durbaanada u tumayaan ummad wada dayawdo ka hawday dawgaan durbaanada u tumayaa boogaha damqan iyo dakrada ku gaadhay aan ciidaweynba tubaaqayga saaqoo dayartaa dhaqaaqdee dibadaha wareegtee shisheeyaha dawaraya dhaayahaygu diideen وبروح وحكا وين باب جيرين تاد waa bay dhowdeen duhurkii habeenkii waxaan la duubnahay ummadani darjeedhe dawgii wacnaa iyo diintii ka leexday gaalada daciifka ah dastuurkay samaysteen iyaguna ku doogsada maxaa lagu dabiibaa ama lagu daweeyaa markaan isu jawaabaya waxa lagu daweeyaa dawladda dirsooc iyo hebel ku daabiyo dagaalada sokeeyaha beelow dheer ka tuurto danyartana dar yeesho dulmanaha u dirirto daacad ugu adeegto dawladaha adduunyada ka daaweyn dhamaantood dugsashada qabiilkii ceebaha ka daahira dabaqoodhi baasiyo aan daryeelin tuugada dabanada ibliiskiyo ka digtoon cadaawaha dadku u simeeyo xaqsoor loogu dawgalay da'yartana aqoontiyo iskuullada u dirayso dugsiyada dhammaantood lagu aadin diinaar wadantii guud dugsiyada dhammaantood lagu aadin diinaar dulmiga dhacaayana diin lagu sargooyo daacadnimo la dhaafayn dadka ay ka dhalashaan dunidaba u jecele deeqow ogsoonow mar buu dirirka cawleed degalkeenna maashayn duunyadu samaano la durduuran caanaha dadkeennuna damaashada farxadayda baaldegi dariiqada burburiyo laamiyada la dayactiri